madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay weheliyaan gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynayaashii hore iyo waliba ra'iisul wasaarayaashii hore iyo sidoo kale siyaasiyiin miisaan weyn ku leh Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen salaada janaasada ee Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee wadanka Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha aaska marxuumka oo loo saaray guddi heer qaran ah waxa kale oo ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ay mudane Maxamed Xuseen Roble Allah u naxariistay Cali Mahdi Maxamed ayaa arbacadii ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka Kenya kadib markii laga helay cudurka coronavirus wariyeena Maxamed Ibrahim Bulbul ayaa warbixin faahfaahsan inooga haya umurtaasi madaxweynayaal hore iyo madaxweyne Farmaajo oo dhameystay muddo xileedkiisa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa si wada jir ah uga qayb galay salaada janaasada ee meedka madaxweynihii afraad ee Soomaaliya Cali Mahdi oo maanta Muqdisho la keenay isla markaana loogu sameeyay aas qaran arbacadii la soo dhaafay ayuu ku geeriyooday madaxweyne Cali Mahdi isbitaal ku yaala caasimadda dalka Kenya ehelkiisu waxay noo xaqiijiyeen inuu u geeriyooday cudurka safmarka ee COVID-19 waxa uuna Soomaaliya madaxweyne ka noqday sanadii 1990kii xilligaasi oo ay Soomaaliya ku jirtay dagaalo xooggan iyo barakac wuxuuna qayb ka ahaa kulamo badan oo xal loogu raadinayo Soomaaliya sida uu Universal TV ugu waramay xildhibaan Zakariya oo kamid ah golaha shacabka xilligaasna kamid ahaa xukuumadii uu dhisay madaxweyne Cali Mahdi awalna waa isnaqino ururkii la oran jiray manifesto oo rabay inaan dalka dagaal ka dhicin buu isaguna ku jiray 114 odayaasha ahaa anna waxaana xogayaha dhalinyarada marka halkaas aan isugu nimid halkaas lagu doortay isaga markii lagu doortana xamar baan u nimid golihii wasiiradu dhisay waxaana ahaa wasiirkii ugu dacyaraa oo golaha wasiirada ku jira maalintaas ugu dhameysay dagaal xooga oo qabiiladu isugu duulaan oo dagaalkii bilada ahaa oo digdigta ahaa oo carrada la jabinayay muddaanu ka shaqeynay marka in nabad la sameeyo nasiib darro dagaalka afar bilood ah baa dhacay boqolaal shacab ah ayaa ka soo qayb galay duugta madaxweynaha waxaana lagu aasay qayb ka mid ah masjid uu isaga ka dhisay degmada Yaaqshiid ee Muqdisho 20 sano ka hor halkaas uu caruurtiisa iyo ehelka kula dardaarmay in lagu aaso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish oo ka mid ahaa guddi uu ra'iisul wasaaraha u magacaabay aaskan qaran ee loo sameeyay madaxweyne Cali Mahdi ayaa saxaafadda kula hadlay aaska madaxweynaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto samariya iimaanna ha ka siiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka baxay madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed mudanayaal waa Ilaahay mahadiis si wanaagsan ayay noogu suura gashay dadaal badan oo la sameeyay kadib in laga soo qaado meydka magaalada Nairobi ee dalka Kenya la keeno dalkiisii lagu tukado mas'uuliyiintu ay kula tukadaan garoonka diyaaradaha ay aga dhigtaan kadibna la keeno goobtii lagu aasi lahaa oo ah masaajidkii oo asaga dhisay qayb ka mid ah Ilaahay baa mahadnaqa alle kadib waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay howlahaas oo nagala shaqaynaysay mar raba inaan warka idinku sii badiyo aanu ducayno marxuumka janaasadana meel walba oo dalka Soomaaliyeed masaajid ku yaal ama culimo ay joogto inay u tukadaan Maxamed Bulbul Universal TV Muqdisho